السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي الغالي وإذن سلامي مير والبودني دافية ذاك جوكتان ومركلي ولالكين حنيف حاج محمود إيه موخال عصب موخال كان هدو ديرادة دولخات لها ترتيب كاسك فيرسو wax muhiim ayaan kusoo bandhigi doonaa maxay tahay farxadda adi ma faraxsan tahay mise dad gaar ah ay farxadda gaar u tahay farxaddu ma jilaysaa oo ma matalaysaa mise si dhab ah ayaad u faraxsan tahay taas ayaan rabnaa inaan ogaano waxaa su'aal laga weydiiyey nin magaciisa la yiraahdo cali huweereen oo filosof sacuudiyaan ah waxaa la yiri mal mafhuum cindak as-sacaada maxaa faham ahaan aad ka qabtaa ama aad ka aaminsan tahay farxadda markaasuu wuxuu yiri asagoo ka jawaabaya wuxuu yiri alxayaat tabda min bukaa'ik وتنتهي من بكائي عليك وحوير نولشب وحي كبلاوتا ويري أديقو أوينايا أيا هوست هويدا لغا سو خبتا ويري أيا دلتا معنا وحين كو دماتا إن أديق لغو أويو مالنتا دلنيس أديقو أوينايا سو بحسا مالنتا دمتدن أديق لغو أوينا أحياء بين البكائين وحاكو نحجرنا ويري لابا أوهين تحذوذا حقي فرحدي إي سعادة تعالى أيو يري مركاسا ليري نو شرح داد كان كومانانك كون سو نولا أو ابن آدنك إي بشرك موحا ليداي فرحد لآن أي نولاين مركاسو وحوك جوابي إنهم يمثلون ويري في مسرح النسيان أي وحي سارين ويري مسرح أو هلمامك ومثلوين أو كذي إني فرح سيين دادك عد فرح سن ملا ويرنو maxaa yeelay abwaankeena allah u naxariistay Soomaaliyeed sangub wuxuu yiri waa maadees adduunyadu dadkuna way matalayaan sidaas darteed adduunyada ba maadees way annagana matalaada u jiro mar farxadda xaqii taala ayuu yiri waxa kaloo kitaabkiisa tuhmat al-ya's kitaab liidaad ku soo bandhigi filosofka Jarmalka magaciisa la yiraahdo Schopenhauer Arthur Schopenhauer وحو ليهي لا يوجد إنسانا على الأطلاق تجد عنده سعادة قف ابن آدم مجر أو أكتيس أكيليس إنه فرح سنيه أم أكتيس أو فرحيس مجرو ليه محايالي ابن آدم كمالين تيلدال إلو كوين وحو راذيا ويري أو كمشغول سنيه أو باذي قوب وقلا أو باربارا وحير أو إسليه كان هدي هشت فرح دادا كجرتو انتو راذيناينه doonta la gidoonto waxaaba dhici karto xariinka uu saaran yahay shiraacada inay ka jajabaan ama ay jexjexmaan oo yiri sidaas darteed xadiiskan wuxuu ahaa ibn aadan la ibn aadanka ishiisa ma buuxisi ilaa ay caramaahina qofka asagoo raadinaya wuxuu kaloo leeyahay nin kale hadii farxad rabtid iyo saacad wuxuu ku soo koob wuxuu leeyahay waa inaad kula macaamusha adduunyada kula sida caruurtii oo kale sidee ani qofweena ay sidee caruur ku noqdaa wuxuu yiri ninku ilmaha caruurta kaliya macnaheedu waxay tahay ilmaha kaliya ayaa faraxsan ba maxaa yeelay cunug yar haduu khasri ku nool yahay ama mandhaar joogo ama sar ku nool yahay iyo hadiis bacariish ku nool yahay waa iska faraxsan yahay waxa ka hore iyo waxa ka dambe war u maahay mas'uuliyad ma saarno taklifa ma saarno waxyaabaha la iska rabo adduunka war u maahay u saa wax rabo macna sida ciyaalku kale waa inuu dhaqantaa Dostoevsky wuxuu leeyahay asagana adduunyada sideedaba aniga waxa leeyahay tilmaam yiri inaan saciid ah ayaa leeyahay tiriyaa yiri sababtoo ah yiri dadka cadowgeyga ah aniga inacab si dhakhsi ah ayaan iskiga cafiyaa yiri cafintaas oo degdega aan cafiyo ayaa farxadeeda mar walba disho yiri sidaas darteeda wax farxad ay ma haysto yiri marka bukaa'een axyaa'an bayna al-bukaa'een waa macnaa mar walba waxa ku dhex jirta laba oohin dhaxdooda sidaas darteeda ninka Yurub joogo ama America ku nool wuxuu aaminsan yahay ninka Soomaali joogo inuu murtaax yahay waxba ka maqneen markii laga reebo dagaalada iyo qaraxa wadankiisa inuu joogo maqsuud inuu yahay stress iyo murugo inay ka fogtahay عكسي نينك سوماليا جوغ أساقن وحو آميس يعني نينك يوروب إي مريكان جوغ
inuu dhergan yahay, derbiga hadduu jugsiyo lacagtii inay usoo daadanayso, maqsuud inuu yahay, waxba inuu ka maqneen, muruga inay haynin, dhibaato dhanba inay haysanin ayuu aaminsan yahay. sidoo kale dhanka kale markaa fiirisid, cunug yar wuxuu ku leeyahay ilaahow marlee maa i weynaysid. ninka weyn wuxuu leeyahay ilminimadeeda yaa ii celiyo, ilminimadeeda yaa ii celiyo. ninka naagta qabo wuxuu leeyahay iskaabulonimadeeda aabi ii fiicneedbo. kan iskaabulahan wuxuu leeyahay ilaahow naagtoo baariya ima ii sahashido. maal qabeenka wuxuu leeyahay aniga nolosheeda maqsuud mugay, ninkaas faqiirkaa iga farxad badan. ninka faqiirkan wuxuu leeyahay aniga waa maalin khad maalin cunan ah, ninkaa man gaara beesaa ilaahu dhiibaya. marka waxaad dareemaysaa nin noloshiisa maqsuud ku ah ama ku faraxsan meesha inaysanba jirinbo, meesha inuusan jirin ibni aadam faraxsan. sidaas darteed waxaa qanacsan oo faraxsan keliya farxaddan oo meelahaas laga raadinayo. waa guursatay waxay leedahay mar haddaa guursato waxaa leedahay farxadaada waa ku imaatay, cunugaa lagu dhal waxaa dhihi farxadaada hadday korodhay murugtaada lay kordhay, murugtaada lay kordhay. sidaas darteed farxadda aan meelaha karaaraadinoon dhan ma jirto. farxadda annaga daakhilkeenay ku jirtaa, qalbigeenay ku jirtaa, ruuxeenay ku jirtaa. maxay tahay sidaas ugu jirtaa? waxa waaye ilaahay wuxuu ku siiyey inaad raalli ka noqotid, inaad ku qanacsan tahay wuxuu ilaahay ku siiyey, aadan fiirinin qof kale wuxuu haysto, aadan dadayin deriskaaga waxay haystaan ilaahay siiyey. alxamdulilah inaad dhaad irdaa bimaa khasama allaahu lak, ka raali noqo wuxuu ilaahay ku siiyey. qofkaasaa faraxsan oo kaliya. haddii aad aragtid qofka hanqaltaaga, wuxuusan asaga lahayn u hanqaltaaga, wuxuusan gaareen u hanqaltaaga, wax dadoo mar walba u hiraan hiraayo, ma faraxsan. ibni aadankan wuxuu u badan yahay waxaa waaye hal dirham haddiis helo waxaas xaawilaa dirham labaad inuu helo, wuxuu leeyahay ma kugu filno. markiis labaad hel wuxuu leeyahay markiin dirhamka haystay ayba nolosheeda fiicneed, lama dirham markiin hel ciriiriyanba galebo. sababtoo man zaada dirham zaada alhaba ay dhahaan. sidaas darteeda qof walbo noloshiisa iyo wuxuu haysto ha yaraado ha badnaado, haddii uu ku qanco ilaahay wuxuu siina raalli ka noqdo, farxad intaasaa ugu filan. sidaas darteed muuqaalka waa dheeraaday, halkan ayaan kusoo koobaynaa. haddii aad ka heshay sheekooyinkan iyo qisaskan commentiga noo soo sharax. haddii dhibaata noocan ay ku haysatay oo muuqaalkan uu ku shaafiyey, waxaad yeelaysaa noo sheergareey, kheyrkaagana u sheergareey si ayagana ay wax ugu faa'iidaan, annagana na dhiirigeliya si aan muuqaalo cusub iyo xikmad cusub iyo qisas cusub iyo sheekooyin cusub aan idinku soo gudbiyo. muuqaalkeygana halkan ayaan kusoo gabagabeynaa. waxaan idin leeyahay nabaadiino iyo nooli kulanto iyo muuqaalka xiga.